sheekadan waa sheeko oo dad badan aad u cajabisay. waxaa la dhahdaa maamadii wardinaysay. marka guri oo ay ku nooshahay maamo iyo ilmaheeda ku nool yihiin xilli dhexe maamada way iska wardinaysay adii 8 saac habeenimo camal. marka waxaa usoo galay tuuga nin wuxuu ahaa dhalinyaro ah oo xoog leh. maamada markii uu tuuga arkay indhahu u shitay wuxuu dhahay maamaya cajuusada maxaa sacaddan kusoo jeediyey naasixadi marka waxay dhahday allah maandhow wiilkeygiio waxay tiri wiil wanaagsan aa u agteegtay aad u wanaagsan oo duruufta meesha la gashay laakiin dhib ma lahan tiri dhib ma lahan aniga adduunya in badanaa usoo joogay. marka waxay dhahday guriga waxaa ii yaala dahab fara badan oo ilaa markii aniga waxay tiri oo gabarnimadeedii aan yaraa ilaa hadda aan aruurinayay iyo lacag xoog leh oo ilmaheyga ii shaqeeyeen. marka waxay dhahday waxaan kaa codsanaa maandhow maadaama aa qof wanaagsan u eg tahay riyo aan ku wareeray oo dhinacaa undhiga aan aqoon waayey inaad riyadaas ii fasirtid kadibna waxaa rabtid qaaday dhahday waxaa rabtid si nadiif ah oo tartiiba u qaado. okay tuugii waxaan niyadda iska geliyey maamadan way isku dardarsantay yacni maskaxiyan mid qofiyow ma ahan. marka waxaa kaba daata waxay haysato dhanka qaado ku dhaha okay ii sheeg riyada. maamada marka waxay socday inay baxar geliso oo ilmaheeda waxay rabtaa si farsamo ah oo qaba ah inay kusoo kiciso si tuuga loo qabto. okay waxay dhahday anigoo meel waxaan maraya tiri meel webi ah oo webiga geeskiisa ah lugta waxaan la galay dhahday meel buur yar aan lugta la galay. kadib waxaan kor ugu qayliyey war caliyow soo bood war caliyow iga soo gaar. okay caligu marka waa wiilkeedii oo si farsamo ah waa muta tuugi ayaa dhahay oo caligaas yaa waaye intuu dhahayeba wiilkii caligii u yeeraysay wuu soo baxay tuugiioo qabtay beerkuu ka garaacay beerka waa la tumay tuugii waa la tumay maamadii waxay dhahay waa caliyow bis ka dheh wariyuusan ugu dhimana bis ka dheh. tuugiyaa dhahay intuu qiiliyo dhahay caliyow igaraac caliyow si fiican beerka iga garaaco dhahay sababtoo ah aniga wuxuu dhaha meeshaan ma waxaa u imaaday inaan wax xado mase inaan riyo fasiro. sheekada qaybteeda dambe la soco.